milatariga wadanka Suudaan ayaa afgambi kula wareegay taladii wadankaasi iyagoona xaalad degdeg galiyay qodobkan oo faahfaahsan waxa si anbaqaadaya wariyaheena Maxamed Qadar. ciidamada amniga Suudaan ayaa xiriir ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abdullah Hamdouk iyo wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa kumanaan qof ayaa ka mudaharaadaya xariga iyadoo sarkaal sare oo ka tirsan milatariga uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isla markaana kala diray dawladii ku meel gaarka ahayd ee dalkaasi. dhaqdhaqaaq ka dhan ah ra'iisul wasaaraha Suudaan Abdullah Hamdouk ayaa yimid wax yar kadib markii milatariga dalkaasi ay xireen dhowr mas'uul oo rayid ah. ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abdullah Hamdouk iyo dhowr xubnood oo kale oo ka tirsan hoggaanka rayidka ee dalkaasi xiray sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta ee dalka Suudaan. sarkaal sare oo ka tirsan milatariga lagu magacaabo Abdul Fattah al-Burhani oo ah generaal madax ka ah golaha sare oo ah hay'ad xukun qaybsiga ah ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi oo dhan waxauna kala diray golihii iyo xukuumaddii ku meel gaarka ahayd. afgambigan ka dhacay dalka Suudaan waxaa cambaareeyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. afgambiga military ee ka socda Suudaan wuxuu ku baaqay in la sii daayo ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiinta kale ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka. waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay sii wadi doonto inay garab istaagto dadka iyo dalka. waxa uuna cambaareeyay afgambiga military ee ka socda Suudaan. ra'iisul wasaaraha dhammaan mas'uuliyiinta kale waa in si degdeg ah xorriyadooda loogu soo celiyaa. waa in ixtiraam buuxa loo muujiyaa axdiga dastuuriga ah si loo ilaaliyo kala guurka siyaasadeed sida adag lagu guuleystay. qaramada midoobay waxay sii wadi doontaa inay garab istaagto dadka reer Suudaan. xukuumaddan afgambiga